مسؤولين حسبية معارض كعود iyo wadani ayaa maanta kulan ku yeeshay gudaha xarunta dhexe xusbiga mucaarid Kacud oo ku leeyahay gudaha magaalada Hargeysa. Kulankan ay yeesheen mas'uuliyiintu oo warbaahinta dibadda joogka ah ayaa markii uu soo dhamaaday kulankaasi waxa warbaahinta si wada jir ah ula hadlay Professor Abiyan gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee u tartamaya jagada madaxtinimo ee dalka ee xusbiga mucaarid Kacud iyo sidoo kale Xuseen Axmed Caydiid oo kamid ah sarkaalada ugu sarsareysa xusbiga mucaaridka wadani waxaana ugu horeyn goobtaasi ka hadlay Professor Abiyan oo sheegay in kulankan ay yeesheen labada xusbi ee mucaaridka ay daba socdeen kulamadii ay dhawaan xusbiyada qaranka ee saddexda xusbi qaran ay yeelanayeen taas oo ku salaysnay ka wada hadalka arrimaha doorashooyinka dalka sidii ay u qabsoomi lahayd waa doorashooyinka golaha deegaanka iyo golaha baarlamaanka ee fooda nagu soo hayay waxaan hadaladiisii kamid ahaa September 19 waxaa isugu yimid kulan saddexda xisbi oo madaxweynuhu jeer gareynaya iyo madaxweyne ku-xigeenku kulanka waxaa laga hadlay doorashada qabsoomi lahayd 2019 bisha March waxaa ku xigay kulan 23 bisha September dhex maray haddana labada xisbi mucaaradka u ciidiya wadani iyo madaxweynaha hoggaamiyaha xisbiga kulmiye kulankaas aad buu dheeraa qadu ku bilaabmay 7 saacadood taqriiban baa uu soconayay kulankaasi wax walba oo wadanka maanta xawaashiisa ah arrimo dibadeed arrimo gudo amni dhaqaale cabashooyin wax walba si degan oo runtii detail ah ayaan uga sheekaysanay waxaa la isku wada raacay in la sii wada hadallada in la isku dayo in la suurto geliyo in doorashooyinkii sasaara ee golaha wakiilada iyo deegaanku ay noo qabsoomaan kullay wuu imanayaa delay ama dib u dhac laakiin inay noo qabsoomaan oo aanay baaqan waxaa marka noo bilaabmay gudiyadii saddexda xisbi ee doorashooyinka u qaabilsanaa kulamaa noo bilaabmay talka garan hadii ka bilaabmay 25 September waanu isugu nimid 7 qodob ajenda ah ayaanu qoranay inta ka bacdi Xuseen Axmed Caydiid oo ka tirsan xusbiga mucaaridka wadani oo isaguna mikrofoonka qaatay intaasi waxa uu ku daray in xusbiga wadani uu mowqifkii taagan yahay in la bedelo guud ahaanba gudida doorashooyinka waxaan hadaladiisii kamid ahaa garbuusada u leeyahay haddii uu siiro walaha uu marka cawday uu raho wartaasina dhaaftay doorashooyinka dambe ee soo socda siiro wala lagu kalsoon yahay lagu wada kalsoon yahay oo sida loo soo xulayna ay si siman tahay waa ka war haysaani marka wixii doorashooyinka soo dhacay komishanada qaabka loo soo xulay wuxuu bay ahaayeen in shanna kolba xisbiga talada haya yeesho labana ay kala yeeshaan labada mucaaradkina 5 against 2 ma aha wax lagu yeen run ahaantii aynu oran karro kalsooni weyn baa lagu qabi karaya komishanka waa la duray oo habdhaqankiisii baa la duray isla markaana soo xulista iyo siduu ku joogaabaan cadaalad ku fadhiin dimuqraadiyaduna in la koriyaabay u baahantay oo laga shaqeeyaa waqti bay qaadataa dhaqan baabaynu u soo lahayn inaynu doorasho kasta oo dhacaysa saddexda xisbi iyo komishanka iyo madaxtooyadu ay ka soo wada shaqayn jireen xeerar la soo unkay oo dhan oo qurxinaya ama hagaajinaya doorashooyinkeena dambe tan waxay noqotay tii horeysay wax walba la isla diiday inoo cusbay in komishan la kala diraa hore loo soo kala diray iyadoo waliba doorashooyin ay sanka inagu soo hayaan oo diiwaangelin ay qabteen oo laga gudbay diiwaangelintii ayaa la kala diray 2008 komishan oo kulankan gaarkiisa labada xusbi ee mucaaridka wada yeesheen ayaa waxa uu qayb uun ka ahaa kulamada ay saddexda xisbi qaran ay yeelanayeen maalmihii u dambeeyay ee ka socday gudaha magaalada Hargeysa kaas oo diiradda lagu saaray habka ay doorashada golaha deegaanka iyo golaha baarlamaanka Soomaaliland u dhici lahayd taas oo ay sheegeen inay ka dayranayaan in dib u dhac uu ku yimaado doorashooyinkaasi وخضر إسماعيل محمد خضر دنبال يا أحمد شيتي مقبهية على قبض عصر 4 TV مقرد